Weedhaadii soodku waxay iga qaaday weedhaadii soodku waxay iga qaaday cidlada wahabkeeda wareegta xisayga weedhaadii soodku waxay iga qaaday weedhaadii soodku waxay iga qaaday cidlada wahabkeeda wareegta xisayga intaan wehanaabay dabtaa waladuuday waxaan ku ilaaway aragga wejigaaga waa hagaag dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 57 ee sheekadii la magac baxday laabmida iyo lur jacayl oo aad u xiiso badan waana fikradii alabwaan isma sitoosi waxaadna kala socotaan idaacaddeenna hirsamo dhegeysi aboon qaybtan oo aad u xiiso badan xiisaheedana wadata kalgacaylehaa saleelne hawaar jacaylku watay dhegeysi aboon liisa qaybtan 57 ee sheekada waxay inoogu bilaaban doontaa ku fashilmidii baari hadafkiisii iyo eedihii bilan gabadhii bilan ahayd waxaa soo wajahay cabsi ay ugu baqayso in baariyare aabaheed wax gaadhsiiyo waxayna ka codsatay inuu banaanka u baxo baari cadde waagii ayaa ku xumaaday sababtoo ah wuxuu la kulmay sharaf dhac iyo wejigabaxnimo asagoo ciil bastiil ah ayuu gurigii ka soo tagay dhanka kale jaraadixle yeelantiisii ayay ka tafatay maadaama jaraadixle uu ahaa dadka qaar ee loogu yeedho afxume wuxuuna aflagaado iyo waxyaaba ruux caqli leh uusan dhihi karinna ku tilmaamay wiilkii baari balse bilan waxay ka necbayd ma jirin in baarigeeda laga caaya ama xumaan loogaga waramo waxayna istusisay inay kasoo dhaqaaqdo afxumada aabaheed jaraadixlena wuxuu sii watay qayladiisii balse yaaba dhegaystaba wuxuu ku indha furay in hoygu maran yahay bilan oo ciil laabta kaga ooynaysa ayay gurigoodii timi hawiyana way aragtay in gabadhu meel ka qaldan tahay waxayna tidhi gabadhaydii hooyo ii waran bal aabba miyuu ku garaacay sawdigan kala xidhan maya hooyo inuu garaaca iiga wanaagsaneyd siduu sharafta igaga idleeya aabbo hooyo haweeye markeedii horeba ayadoo ogeyd in jaraadixle looma dhawaadaan ah ayay si kaftana u tiri inankii baari ahaa miyuusan kula socon kolkaa haa hooyo wuu la socday ha yeeshee halkay dhibtuba iiga asiibtay asaga xaggii ayay ahayd asna xal ayuu u socday balse aabba ayaa xumaan ka siiyey baaricaddo oo daymaba lagu dhammayn karin wejigiisiina ayuu gurigii yimi waxaana joogtay eedadiisii hadaf baarta ha yeeshee baari halkii laga rabay in eedadiisa uu xaal wareysto ayuu ugu koobay salaan deedna wuxuu isku tuuray qolkiisii jiifka waxaanuu maaxanayay fashilkii ku yimid siduu damacsanaa balse asagoo taa qalbigiisii kaga samirsiinaya inuuba ka baxo arrinta uu ku xalin lahaa qoyska gacalisadiisa ayaa waxaa soo wacday isla barni oo doonayso inay wax badan kaga ogaato arrimihii ay kaga ergootay waxaana dhex maray weerahan soo socda haadiyo weedhe har walbaan mawjadu hagaa hadal laga naxa maahanee hebel baa hog sameeye heblaayaa hadal ee tiri meel hebel baa hogmayso uunbay hadalkuman ka dhigteene hawraarsan miidiya halkeen ka helaaniyahu hafkiisuu birhana saaxiib miidiya lagu hirto hankaaga midaynaya hadalsan lagu yaqaan heedhe ma waadan maqlin hirsama raadiyow kuwii booriniyahow
hirsamo waa mawjadee haatan aan ka maqlaa hirsamo mawjadeedu waa hiba tabisa hal abuur leh had iyo goor ka dheeho halka bulshada casrigan hadalkoodu dhex yaalo hirsamo tub kala soco haddaba soo degso haltabinta barnaamijyadeeda hagaag haadiyow iminkaba ha yeeshee haadiyow hirsamo hawraarteedu maxaa laga hantaa oo aan ka helaa hirsamo haltabinteedu hadal ku dhibaya maaha hog sheegtana maaha hadal siyaasadeed haddima abuuraya hanxumi beeraya hoos u dhac muujinaya kuma habto bulshadeeda hirsamo waxay u helan tahay hanuuninta shacabkeeda ku hagidahanka toosan ka hayaamida hadafka xun iyo ka helinta hagardaamada hirka nabadda guusha hirsamo waa astaanteen xubbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda dhegeystayaal waxaa halkaa nooga dhan qaybtii 57 ee sheekadii aad ku xiisaha badnayd ee laab mid ah iyo lur jacayl intaynu dib u kulmi doono qaybtan qaybaha kale ee xiga ee sheekada waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo waana bahda raadiyo hirsamo idin leh nabadiino iyo noole kulanti oo xiiso badan